maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu xusaayay maalinta dhalinyarada adduunka oo ah 20ka bisha labaad oo ay soo qaban qaabayeen ururka dhalinyarada ee Sonyo. munaasabadaasi oo ka dhacday hoolka dhalinyarada ee Yufenko ayaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro tiro badan, xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka iyo golaha deegaanka ee degmada Berbera, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay mas'uul sare oo ka socday dalada dhalinyarada ee Sonyo iyo agaasimaha samafalka madaxtooyada ee gobolka Saaxil Marwo Caasha. haddii aan u gudbo muhiimadda maanta ay leedahay xafladda ay halkan u fadhinaa waxa weeye waa in la xuso oo la xasuusto 20kii February 1982 wixii ugu horreysay ee halkii gobolka ama xooggeeda soo noqoshada Soomaaliland. haddaba dalada heer qaran ee Sonyo iyadoo tixgelinaysa dhammaan shucuubta ku nool Soomaaliland waxaa la isla qaatay in maalintani ay noqoto maalin u gaara dhammaan dhalinyarta Soomaaliland isla markaana loogu yeero maalinta dhalinyarta jamhuuriyadda Soomaaliland. in maxay ahayd maalintaasi marka astaanteeda la sheego aan la soo koobi karaynin inagana dhabarjab iyo dhaawac ugu noqotay, laakiin midhodhaal samaysay oo midhodhalkeedii maanta aynu u fadhino bashbash iyo barwaaqo. maxaase maalintaa 20 February matala tahriibta inagu soo biirtay ee faraha badan ee guri walba maanta guri u saamaysa. geesta kalena waxa iyana munaasabadaasi hadallo ka jeediyay cuqaal, xildhibaano, macallimiin, kuwaasi oo dhammaantood hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay maalintani. gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha haamaha shidaalka Saleebaan Siciid Cali iyo maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin. raggeena dhalinyarada ah ee imikaynteena dhalinyarada halka wada joogtaa halgankii oo kale ayaa looga baahan yahay. wuxuu noqonayaa halgankaas inaynu dalka dhisno oo horumarino oo wax barano. kulley labadiis iskumaa darina waliba waa ku jiraaye kulley labadiis deetankiina raggii joogay waa kuwa dhagaxa tuurayay. inagu waxaynu nahay dhalinyartiida waktigan imika dhagaxa qaada waaya. iminka waxaan idin sheegayaa kulley dekeda aan anigu mas-uuliyiinteeda ka midka ahay mas-uulka labaad aan ahay ilaa 3 kun oo qof oo shaqaalaha la shaqeeya oo shaqo taga soo bixiya. aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa haddii alla ka dhigo. waxaan rajaynaynaa inay noqoto xafladeennan aan isugu dhigto aan ka midha dhalino. dhalinyarta annagu aad baan u taageernaa marka la yidhaahdo BOT annagoo mar kastaba ka duulaynaa fulinaynana wixii ugu talagalay madaxweynaha qaranku. marka la yidhaahdo dhalinyarta iyo shaqaalaha terminaalka iyaga ka shaqeeya iyo dhalinyarta sportiska oo ah ka shaqeysa Hargeysa iyo Berberaba joogta way isleeyihiin. marka waxaa galaysa ahmiyadda aanu dhalinyarta u hayno iyo culayska shaqaalaha noo shaqeeya iyo sportiska iyagu cadad ahaan way isku dhow yihiin. shaqaalaha iyagu waa 50, sportiska iyaguna waa 40. marka dhalinyarta taana waa kolley waa himilada keliya dhismaha dhalinyarta waxaan la karaa waxay geliyeen awood ugu badnaaneed cidda geliyay golaha deegaanka ee degmada Berbera. iyagoo halkudhiga golaha deegaanka ee degmada Berbera uu yahay dhismaha caqliga, jismiga iyo cilmiga dhalinyarta inuu yahay. hadday yihiin kuwa kubad ciyaaraya, hadday yihiin kuwa waxbaranaya iyo hadday yihiin kuwa jaamacad ka dhiganaya. Cabdiraxmaan Maxamed Cige, telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.